السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرب مصر وأنا بالسلام يا من بهذا إذا أفون هالشيء وحتى لو سلام يا الممضى الصومالية تمام سيدنا الخلايا جوان وحا قارحان قلدا ومضى غير أوضن وحسلام مركا بالكل إيمان وحن جعلان لها إنا كهدلو قريما يرو دور meelood qaadanaya meel waa qaybtan waqooyiga ama awdal saabsan gobolada waqooyi gaar ahaan gobolka awdal iyo arrimaha ka socda shabeellaha hoose oo iyagana wax ku oran lahaa marka awdal baan ku horeynayaa awdal waxa ka jira horta caburis aad u badan ku dhaqaale ku siyaasadeed iyo tu bili aadan kaba maskaxdiisa lagu ciyaaro cabsiyeed buu ku jiraa bal dhaqaalaha hadaan ku horeeyo caburis lagu hayo dhaqaalaha laga horjeeyo waxa cadaana oo laba marxaladood lagu cadeyn karo waa mid dekada yar ee sayda oo wax kala soo dega waxay laba goor ka badan tahay cashuurta laga qaado waxa soo jira dadka waxay ka soo rartay Djibouti baabuurtooda waxa laga rabaa lagu dejiyaa laba goor baa rarka laga dejiyaa waliba dadkii dejiyeena lacag looga qaadaa ninkii hantida yar watay loo yacdo markuu baabuurku yimaado waa laga dejiyaa waxa baabuurka saaran oo dhan marka uu marayo jirina waa laga dejiyaa amba aashacado waxa loo dibna waa loo rabaa marka iyaga ku dhowda cashuurna waa laga qaadaa xadaafa dadka xamaalkee alaabta dejiyay dejintana lacag baa laga qaadaa tarishana lacag baa laga qaadaa iyadna waa wax oo aanan ku jirin waa midaas mid kale haddana maalmahan soo kordhaya xiisadii laga abuuray sayla maamulkaasi uu ka abuuray baa weli lagama harin maalinba meel baa loo soo marayaa hadda waxaa la keenay taliyaha bilayska waxaa la keenay ninkii joogay Gabiley kolkii ka dhaceen labadii dilkii foosha xumaa ee Soomaal iyo dilkii nimankii baayac mushtarka ahaa ee baabuurta lagala dhacay hantidooda lagu dhacay intoodiina lagu ninkii ka mas'uuliyadda markaa hayay ee Gabiley joogay baa hadda la keenay sayla wuxuuna ka bilaabay sayla markii halka ku noqdo markii laga qaaday wuxuu la geeyay Burco waa ninkii jeelka ka sii daayay dadkii xidhnaa Siraanyana waa inaadeerkii nimanka Siraanyo ku shaqaysto una ka mid yahay hadda sayla baa la keenay wuxuu ka bilaabay oo reer xariira dhibaato oo nin howlo dhaqataa oo safara waa kii mar dhaweyd ku xidhay maxaa la yiraahdaa meeshaas xariirad isagoo ka faa'iideysanaya labiska booliska uu sito awoodda ku intimideed gareynaya dadka degan degmada sayla iyo hareereeg taas waxaasina wax loo dul qaadan kara maaha waayo hawsha waxa wata
ina biixi iyo ina shiraayo iyo wixii la halmaala waxaana ku cadeynaysa inaan anagu awoodda nimanka inta Soomaaliland sheeganaysay bahda galbuusiya iyaga qudooda waan la hadlaynaa waayo madaxweyne ku xigeen bay leeyihiin madaxweyne ku xigeen kaasi aqal buu isaga jiraa kama hadla arrimaha wuuna og yahay waxbana ka qaban kari maayo waxna inuu ka qabo inuu haduu ka qaban kari laana ma kari karo laakiin waxa aamusiyay uu aqalka ugu jiro iyaduna waa su'aal cajaa'ib loo leeyahay marka odayaasha qalaadiinta beesha Samaroon ee aqliga leh ee damiir kale iyo wixii siyaasiya iyo aqoontaba waxa waad aragtaan dulmiga iyo dulliga laydinku hayo marka inaad dhulkana idin kaale inaad iska dul qaadaan baa kulay idin kula talin lahaa adduunyadana waan u sheegaynaa marka waxa ay oo jira baan wax xaqiiqa oo marka taas waa mid hawshaana waxa iska la reer awdal inaad u dul qaadataan oo nolosha laydinku xiriiriyo shay macquul ma loo qaato loo ogolaado dulliga inaad iska ridaan baa muhiima iskuguna timaadaan shir adaniina kaga hadlaysaan waayo wax idinka celin kara oo xaaraan ka dhigaya ma jirto hadii aad moodaysaan nolosha dhalanteedka ee buurama taala waxa idin anfacaya ma waxa weeyaan laba jaamacadood baan leenahay nolol ma waayo labada jaamacadood way jiraan laakiin dadka wax ka bartay xagee tagaana jaamacada ka soo baxay galaan shaqa looma abuuro aqaladooda ku dhaxwaashaan qaarna badaasay ku lumaan oo ku halaabaan oo laga waayaa oo waa qaarna doonidaasay ku dhawaan tahriib bay ku dhamaadeen qaarna guriyay waalidiintooda ku dhaxwaashaan marka lama oran karo human resource baa la abuuray lama oran karo waxa weeyaan problem bay siyaada ka tahay iyaduna qayb ka tahay dad baan wax barnaado marka waxa loo baahan yahay marka aqoonta ku dheedo inay yeelato way aragto waxa ay qabanayso inuu ummadda faa'iido u yahay iyo in kale waayo faa'iido waxa lagu keenaa marka dadka wax loo abuuro uu meel u tagay leeyahay uu wax qabsado leeyahay uu ka samaysto leeyahay uu dalkiisa ku manaafacaadsan karo uu taladiisa leeyahay waayo talada awdal dad burburca laga keenay oo meelo kale laga keenay baa shaqo loogu abuuraa oo ka shaqeeya waxay ahayd dadkaas meelaha jooga ka cashuurta jooga ka booliska haysta waxa oo dhan reer awdal intay shaqalaayeen xaqba looguma laha inaan qof shisheeye dibadda looga keeno oo qofan iyaga u dhalan laga keeno dadkaagii oo gaajoonaya inaad ogolaataan waa dullinimo marka taasaan kaga gudbi lahaa wabilaahi tawfiiq insha allahu tacaala waa la gaari gudta waana la isku tashata kale waxaan odhan lahaa oo ku dari lahaa dhibaatooyinka ka socda jubbooyinka hoose ee jira iyaga qudhooda dawladda Soomaaliyeed waxaan odhan lahaa maadaama aad dawlad Soomaaliyeed iyo xuquuqaad aad tihiin ood mas-uuliyiintii ugu sarreysay ummadda Soomaaliyeed tihiin waxa wanaagsan ummadda Soomaaliyeed wixii laydinku dhiibay ee ahaa in Soomaali la nabadeeyo oo wanaageega iyo danteeda laga shaqeeyo oo wixii dhacay la kala furfuro oo laga dulqaado dadka dad qabsaday inuu qof haysto waqtigii la isdoonsanayay ee la isdacayay adduunkuba uu ka gudbo marka maanta Soomaalima waxa ka soo laga celinaya 22 sano ummad oo ku jirtay cadaadis iyo kufsi iyo dhac miyaa haddana loogu daray in beeruhoogii laga dhaco iyaga dib loo abuuro laga taxiyo dhulka intii hore uga qaxday 22 sano la qaxinayo la haystay dadka marka waxaan lahaa dadku waa walaalo waa Soomaali in la gar qaado oo gartaa xaqbeega la qaado oo dawladdu mas'uuliyadda qaadato oo dadka kala siiso oo nin walba meeshu u dhashay loo daayo oo dadka intay u tageen dhulkooda ku haysta ee ku qabsaday in laga daayo weeyaan oo laga celiyo oo cadaaladda iyo walaalnimada iyo Soomaalinimada iyo quruxda ummadda Soomaaliyeed iyo qarannimada Soomaaliyeed la dhaw waxaan la yaabay wasiirkii difaaca ee maalintii dhaweyd la hor keenay baarlamaanka in sarcaadna in ummadda loo sameeyo maaha su'aal baa la weydiiyay ahayd bal ka waran waxa ka dhacaya shabeellaha hoose su'aal sax ma markaa question period wax la yiraahdo amba waqti su'aalo la weydiiyo dawladda oo waqtiya in la siiyo oo xildhibaankii fikir haya ee su'aal hayaaba weydiiyo marka nin baa weydiiyay wuxuuna ku jawaabay iyagaaba isbaara dhigtay marka ummadii la dhibaateynayay ee dibtu haysatay wuxuu ka dhigay niman isbaara haysta
isbaaradana waxaa looga yahay nin uniformka gashan dawlad sheeganayo oo ciidan sheeganayo weliba qabiil beeleed sheeganayo oo beel sheeganayo oo ciidan beeleed baa isbaarada dhigtama marka waxaayoo dhan waa qalad weeyaan waa wasiir Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed buu wasiir u yahay inuu waxaa ku hadlana waa wax laga yaayaqsado wey marka madaxweynaha waxaan leeyahay haddayna wasiiradaadu garanaynin waxa loo igmaday ee loo diray ummadda Soomaaliyeed oo hayaan bedel ummad Soomaaliyeed oo garashadeeda leh oo awoodeeda leh oo kartideeda leh oo aqoonteeda leh baa dhulka ka buux marka oo bedel waana ahayn haddaan tiri karin adiga ku dhaado ummadda Soomaaliyeed ha lugeyn kaga tag ummadaas shabeellaha hoose waxaan ugu baaqaynaa in nabad si degdeg ah looga dhaliyo oo dulmiga laga dulqaado ummadaas oo walaalnimadooda iyo quruxdooda iyo sharaftooda loo soo celiyo oo waxa ay taladooda iyo fikirkooda loo daayo oo ku talan galaan oo wixii xun waa laga toosin karaa laakiin wanaagooda iyo horumarkooda in lagu taageero oo laga daayo dulmiga iyo dhac baa wanaagsan markaa iyo kufsiga iyo boob laga daayo marka intaas baan kulley kusoo gabagabaynayaa insha allahu taala wabilaahi tawfiiq ilaahna khayrkaayna waafajiyo soomaalinimadana inoo soo celiyo wadajirkii ummadda Soomaaliyeed oo qurux badanna alla ina tuso dhammaantiinba waa salaamaya ummadda Soomaaliyeed oo dhan dhammaantood wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Oh,